qof walba oo daawanaya muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inuu booqdo channel loo yaqaan Somline oo aad kala doontid barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaas oo ku saabsan taariikhda dagaaladii hore, taariikhda shakhsiyaad caan ah iyo mid diineedba. haddaba qofkii channelkan booqdo macnaheedu waxay tahay inuu qofkan YouTube-ka u joogo inuu wax faa'iido isla ahaantaana aan ciyaar u fadhin meesha. haddaba qof walba waxaan ka codsanayaa inuu channelkaasi booqdo isla ahaantaana subscribe ku sameeyo kuna taageero wuxuu qabanayo. mahadsanidin. haddii aad dhibaato ku qabtid internetka isla ahaantaana uu culeys u yahay isticmaalkiisa, aniga ayaa maanta ku joogo ama sad groups ayaa garabkaaga taagan. maanta waxaan ku sigbi doonaa barnaamij aad u fudud oo aad ka helaysid Play Store iyo meel walba oo application lagala soo dago. ayaan jeclahay inaan maanta idin soo gudbiyo taasi oo kaa sahli doona in internetkaaga ama xawaaraha internetkaaga uu aad u farabadiyo. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. lama saxat malba joogtaan in soo walba noo maqalsaan waxaa ku soo dhawaataa shabakada Sad Groups magacaygu waa Cabdi Daahir. haddaba muuqaalka aad ku xiiso waxaan jeclahay inaan idin ku soo gudbiyo sida aad ku badi kartid xawaaraha internetkaaga. haddaba laba nooc oo internet ayaa jira, mid waa mobile data midna waa wireless. haddaba taa jeclahay maanta inaan idin soo gudbiyo waa midka wireless-ka, maxaa yeelay midka data waa mid lacagtaada taasi internetkiisa mar walba xawaarisaada u fara badan tahay. insha Allah haddii aad jeceshahay qaabka daatada yani mobilkaaga qaabka yani loo ilaaliyo in yani mataqaanaa wax badan data ka cunto, maxaa yeelay hadda daatooyinka isticmaalayna xawaarahooda inaba caadi maahan, speed-a ku furan daatada hore ay ka dhamaanaysaa. laakiin waxaa jira wadooyin aad uga badbaadi karta arrimahaasi. insha Allah haddii aad jeceshahay qaybta comment-ga iga soo codso. laakiin maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo qaybta wireless-ka, maxaa yeelay halkaas maadaama taa wax free ah oo bilca ku dhiibaysid waxaa aad loo yareeyay xawaaraha aad ku isticmaalaysid. marka insha Allah maanta ayaan jeclahay inaan isku gudbiyo qaabka aad u badi kartid xawaaraha internetkaaga oo wifi-ga ama wireless-ka ah. okay daawadayaal soo laabasho wacan. haddaba marka hore waxaan soo furanaynaa Play Store-ka, kadibna waxaan ka raadinaynaa barnaamij loo yaqaano Hola Video Installer. haddaba barnaamijka qaabkan ayuu noogu soo bixi doonaa. marka oo ujeedaan barnaamijkan waa barnaamij dad badan ay ka heleen oo mataqaanaa review aad u fara badan leh. haddaba barnaamijka marka hore waa soo furanaynaa sida tan ay u soo bixi doonaa, kadibna waxaan taabanaynaa halka ku qoran tahay next, kadibna I agree ayaa taabanaysaa. qaabkan ayuu soo bixi doonaa daawadayaal. haddaba hal shay oo kaliya u baahan tahay oo kaliya inaan on tiraahdid barnaamijka geeska ayaa u jiidaysaa, kadibna sida tan ayaa kuu soo bixi doontaa. hadda barnaamijku wuu kuu shaqeynayaa. okay internetka ama wireless-kaaga xawaarihiisa hadda inaba caadi maahan. hadda tusaale ahaan waxaan soo furanaynaa mid ka mid ah barnaamijyadeena sida YouTube-ka oo kale inoo soo furo tusaale ahaan. okay hadda muuqaalkan oo kale aan baraabanayna ku qoran tahay random transition oo yani muuqaal cinematic camal ah. oo ujeeda hadda muuqaalka meesha cad oo kaliya ila fiiriya. okay ujeeda meesha cad si u boodo waa ujeedaan yani aad iyo aad u fakata meesha cad waa ujeedaan. marka meesha saacad waa meesha sheegaysa xawaaraha internetkaaga. marka halkaas ayaad ka ogaanaysaa xawaaraha internetka siduu isku bedelay. meesha cadka waa meesha kuu sheegaysa in muuqaalkaada dhammaantiis aad wada fiirsan kartid. haddana waxaan ku fiirinaynaa waxaan soo furanaynaa Google Chrome, kadibna waxaan booqanaynaa website bal qaabkay noqonayaan. tusaale ahaan waxaan booqanayaa shabakada Sad Groups. haddaba shabakada Sad Groups hadaa la socon waa website aad ka helaysid koorsooyin aad u xiiso badan sida video editing waxyaabo kale. marka ujeeda hadda sida fast ay wax u soo furayso. okay dhinac walba ayaan ka taabanaynaa waa kana speedkiisa bal fiiriya. meel walba haddaad taabatid si fudud ayay ku furaysaa. internetkayga waa internet aad u culus aniga. marka barnaamijkan wuxuu ka dhigayaa inaba caadi ma yani barnaamijkan speed oo yani 3 ka badan ayuu ku darayaa. double speed xitaa maahan, in ka far badan ayuu ku sameynayaa. haddaba barnaamijkan waa barnaamij aan la heli karin oo mataqaanaa aad iyo aad u cajiiba faa'iidana leh haddana free ama bilaash ah. waa wax aad loola yaabo. haddaba barnaamijkan waxaa ka helaysaa Play Store saaran kugu sheegay. sidoo kale muuqaalka hoostiisa waa soo dhigi doonaa. okay daawaya waxaan rajaynaa cashka aad ku xiisbadana ka shafadla ha iloobina subscribe ku sameysaan channelka soo koona like saarta muuqaalka waa wali ka Cabdi Daahir oo leh muuqaalka waa aad u xiiso badan. bye bye peace.